مسما جرو هذه نقطة لبا مدوي قفك إنكرسن إلو سنجرين وإنو عدين كينا قفك قيريانا إلو جرو وإنو عدين كينا مركان كهدلا يوجري تانك الله سبحانه وتعالى عدين تيدا سوف يعني دقيسو مركي سؤال إيويديو محا عدين أوه جريتانك الله سبحانه وتعالى جوابته وعدين أوه جريتانك الله سبحانه وتعالى ويبريهن كو وحاكا كو كأه أبوركا هدو جرو أبور وحسا ميسمي أو بلابنا الله دمادنا الله هدو جرو وحالغا مارمان إنو جرو كوحاس أبوري وانا لوجيك وانا عقلي هدات جاري أركتيد اسكا أورن ميسيد جاري يعني عرق يدبيل اسكو قسمي أيو كسور دحبحي اسكا ما أورنيسيد وحا اسلامركيبو عقلي كسور دعيا إنو جرو ورشد أما قف سميي جاري ياسي هدات أركتيد قوري ياسي وحي عدين أتهاي إنو جرو كي لسي هدو جرو أبور وحسا ميسمي أو بلابنا الله دمادنا الله وحي عدين توس أتهاي إن أو جرو كي أبوري كاسي أي أنا كنت المامنا أبورها أو مجي عيسو نيهاي الله سبحانه وتعالى مجي عدون تد أياد أقول يري كرتا سيدا هذا ودن كان شوغنو كينيا وحي دهان محل لها إنجاي ضدك أفكار رمضان كو هادلو وحي دهان واق كل وحي أولاد شيدان إلو يهاي كي وحن أبورتي مركي أركان قرحدة ضيحة حدقها دي إنهيغا مسكحدة وحاسودن وحي موجينيان إن أوجرو نقشية أقلي وين له نقشية أقلي وين له إلو جرو هذا تلفون أركتيد مدهيسيد ورشد قرحدة أيو كدا شيء تلفونك هذا أنكو هذا لينو آيفونك هذا meel wada ku aragtid oo soo qaadid ma dhahaysid warshad qaraxday ayaa ay ka dhalatay telefoonkan ma dhahaysid waxa dhahaysaa habka loo naqsheeyay loo hagaajiyay speaker loogu xilay battery loogu sameeyay waxa dhahaysaa waxa ka dambeeya aqli weyn sameeyay telefoonkaasi telefoonku wuxuu tusaale u yahay inuu jiro sameeye guriga wuxuu tusaale u yahay inuu jiro dhise gaarigu wuxuu tusaal u yahay inuu jiro sameeye ama gaariga ninka hagaajiyo injirneel koonkani sidan u hagaajisan wuxuu tusaal u yahay inuu jiro abuurahaasoo ah midka anaga aan ku tilmaamno allah subxaanahu wa tacaala adiga waxaad ku tilmaam kartaa magaca doontid لكن أنا وحن كتل مامني الله سبحانه وتعالى الله وحن أولجدنا متك كون كاني أبوري مركا عدين تكواد أو أقلقة وحاويي كون كاني سيدان النظام سن اسكما أوسن إيمانين كليجيس قرح داني ضيحني حدقي دي إنيجا يمسكح بني آدم كوحن ودن وح اسكسر ما اسمه ما نكون كرا وحكدن بيا أغلي وين كاسو الله سبحانه وتعالى مدك لا قفك بني آدم كقلب جيسا وحكو جرات درينسين يو إنو جرا أبوري أدون كودن بني آدم كودن وحي كم ذي سنيهين إن أجرا أبوري حتى ديمها أنا كتل مامنو إني قلدن يهين diimahoo dhan waxay ka midaysan yihiin inuu jiro mid wax abuuray wax walbo dhaco hatta kuwa mulxidiinta ah qalbigooda wuxuu tusayaa inuu jiro mid wax abuuray marka saas darteeda kristaanka hadaad weydiisid waxay ku dhahayaan waxa jira mid wax abuuray buddhiska hadaad weydiisid waxay ku dhahayaan mid wax abuuray ayaa jira marka kulligood waxay ka wada midaysan yihiin inuu jiro abuuray taasini waa fidrad oo qof walbo tusaysa inuu jiro abuure diimahoo dhan iskuma khilaafsana diimahoo dhan kuwa baatilka ah iyo midka saxda ah maadaama diinta islaamka xaq sax ay tahay xataa kuwa qaldan
caqiida ahaan u qaldan, fikrad ahaan u qaldan, dhammaantoodoo dhan waxay ka midaysan yihiin in uu jira mid wax abuuray, koonkani abuuray. taasna waa fitrad. ilaahay wuxuu ku fidreeyey adduunkoo dhan inay ka midoobaan ama ay ku midoobaan jiritaanka abuuraha oo wax abuuray. intaasi waa isfahanaan jeclahay. midda kale waxaa weeyey caddayn kale saddexaad waxaa weeye caddaynta loo yaqaano the cause. caddaynta sababta. wax kastoo bilaab leh waxay leeyihiin sabab. koonku wuxuu leeyahay bilaab loo yaqaano big bang. big bangigii lagu leeyahay waa sababta oo ku bilaabmay koonkani uu ku abuurmay. taasi waxay tusaysaa inuu jira kii sababtaasi sababay. si fiican ii dhegeyso ninka la dhaho dalmarow. maadaama uu jiraas ee sabab uu waxani ku yimid, wax walba sabab buu leeyahay. kii sababtaasi saameyn ku lahaa wax sabab la'aan dhacayo ma laha. haddii maanta uu qof koronto u dhinto, waxaa lagu dhahayaa postmortem hala geeyo. waxaa la rabaa in la ogaago sababtuu u dhintay. postmortem waxay caddaynaysaa sababta dhacmada u dhacday. postmortem wuxuu sheegayaa, wuxuu dhahayaa qofkani koronto u dhintay. korontadaasi waxaa la ogaanayaa waxa sababay inay maalintaasi qofkani ay ku dhegaysay, waxaas korontadaasi keenay. sidii loo socdo mayno switchka la tegayaa, qof baa shiday. korontaa iska shidmatay ma soconayso. qofkii shiday kadib waxaa la weydiinaya wakhtiguu shiday. marka maadaama uu adduunkani leeyahay sabab, sababtaasoo keentay inuu adduunkani samaysmo, sababtaasi waxay caddeen u tahay inuu jiro kii sababtaasi dhaliyey. sabab ma sabab bay ka dambaysaa. sababta u dambena waa sababta oo aan u naqaano abuuraha oo allah subxaanahu wa tacaala ah. marka big bangka waxay caddeen u tahay inuu jiro kii sameeyey waxani. big bang keliya ma aha, wax walbo sabab ah ama sabab ku yimid waxay caddeen u tahay inuu jiro kii waxaan oo dhan sameeyey. midda kale uu dalmar isweydiin doono waxaa weeyey, hadduu alle subxaanahu wa tacaala jira, yaa abuuray? waa su-aalaha ay kuwa gaalada weydiiyaan, ayadana naga jawaabi doono. horta su-aashaasi qalad bay ku salaysan tahay. waayo alle subxaanahu wa tacaala makhluuqa ka mid ma aha. wax kasta oo la abuuray waxay u baahan yihiin kii waxaasii abuuray. laakiin abuuraha koonkani waxaa waaye kii koowaad bilaabay abuurkii. huwa alawalu waalaakhiru. waa kow, sababtii koowaad weeye. marka asaga ka mid ma aha kuwani waxaa laga sameeyey ama la abuuray. midda kale u dambayso oo u baahan jawaab waxaa weeye, ma saynisku wuxuu beeniyey jiritaanka alle subxaanahu wa tacaala? maya. saynisku wuxuu caddayn karaa keliya waxa uu ka samaysan yahay. laakiin ujeeddada iyo akhlaaqda saxda ah iyo sababta jiritaanka waxaasi ma sheegi karo. xataa kuwa sayniska ku dheereeye oo ka mid nahay Isaac Newton iyo Albert Einstein iyo culummada sayniska waaweyn, mulxidiin ma ahayn. waxay ahaayeen niman aaminsan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jiro. midda kale u dambaysa waxaa weeye, maxaa allah subxaanahu wa tacaala loo arki weeyey hadduu jiro? abuurahani dhulkan iyo samada iyo wax walba abuuray hadduuba jiro, maxay indhaheena u qabanaynin? taasi ayadana laguma cabiro allah subxaanahu wa tacaala. waayo waxyaalo fara badan baa jiraa oo ayagana la arkay oo indhaheennana qabanaynin, laakiin jiritaankooda sugnaaday markii la helay tusaalo caddeyn u ah, sida hawada, gravitiga, maskaxda bini aadanka, xataa electricityga. waxaasoo dhan waa wax dhammaan oo indhaheena aysan qabanaynin. electricityga indhaheena ma qabto, laakiin electricity inay jirto waxaa caddeyn u ah iftiinka ka dhasho. hawada waxaa caddeyn u ah jabiga isbedbedelo. gravitiga waxaa caddeyn u ah isjiidka dhulka iyo samada. maskaxdeena iyo aqliga ku salaysan waxay caddeyn u tahay kii dejiyey. marka dhammaan waxaan oo dhan
wixii kii abuuray waa alle subxaanahu wa tacaala. su-aasha kale oo ayadana u baahan waxaa waa in laga jawaabo, hadduuba alle subxaanahu wa tacaala jiro, hee dhibaato maxay u dhacdaa? marka hal baa ku fahansiina ayadana. dhibaatadu caddeen uma aha inuu alle subxaanahu wa tacaala jirin. dhibaatadu waxay caddeen u tahay in imtixaan jiraan. ilmaha ardayda iskoolka dhigta waa la imtixaanaa. imtixaanka la marinayo iyo dhibaatada la marinayo caddeen uma noqonayso in uusan jirin macallin. macallinkii wuu jiraa, laakiinse dhibaatooyinka iyo dhibka dhacayo waxay turjumaysaa in dadka la imtixaano oo kadibna meeshaasi uu ka dhasho maxaa la dhahaa sabar. marka imtixaanku sabar buu keenayaa. midda kale uu isweydiiyo waxaa weeye, maxaa loo caabudayaa allah subxaanahu wa tacaala hadduuba jiro uu asaga samada abuuray oo dhulka abuuray bini aadamka abuuray, maxaa loo caabudayaa? jawaabtu kooban waxaa weeye, maadaama waxaan oo dhan uu sameeyey oo dhulkii abuuray oo samadii abuuray oo bini aadamka abuuray, marka caabudiinkiisa waa laazim oo ah allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay waajib ulwujuud, wax ay jiritaankiisa laga maarmaan ahayn, laga maarmi karo allah subxaanahu wa tacaala. marka intaasoo dhan oo aan kuu soo koobay waxay tusaale weyn u tahay jiritaanka allah subxaanahu wa tacaala, anigoo aadin wax kale. marka qofka hadduu soo daliilsado aayad qur'aan ah, dooddu meeshaasay ku eg tahay, waayo aayadaha qur'aanka uu soo daliilsanayo waxaaba keenay allah subxaanahu wa tacaala, waa hadalkiisa. marka dhammaan hadalkoo la soo koobay, allah subxaanahu wa tacaala wuu jiraa, mana la abuurin. aqliga iyo sayniskana daliil bay u tahay. kownkani daliil buu u yahay. sanuriihim aayaatina fi laafaaq wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq. adduunku maanta wuxuu ku salaysan yahay wax la dhahooda fine tune ama fine tuning. adduunku wuu nidaamsan yahay oo koonkani wuxuu ku socdaa sharciyo iyo xisaabaad. sharciyada iyo xisaabaadka uu koonka ku socon yahay ku socdaa waxaa ka dambeeya kii dejiyey, kaasna mid kale ma ahan, waa kii waxaan oo dhan abuuray. midda u dambeyso oo hadda ku soo koobi doono waxaa weeyey, allah subxaanahu wa tacaala oo aan ku tilmaamay kii waxaan oo dhan abuuray. maasha allah. marka dhammaan waxaan ku soo koobayaa sayniska iyo aqliga iyo waxaasoo dhan inay tusaale u yihiin jiritaanka alle subxaanahu wa tacaala. marka waxaan u malayaa doodeenu inay intaasi aan ku soo ekeensiin doono. intaan dhammaystirin waxaan ku soo koobayaa hal aayad oo alle subxaanahu wa tacaala leeyahay, sanuriihim aayaatina fi laafaaq wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq. marka insha allah jawaabo baan soo dhigay, su-aalihii waa ka jawaabay. afalaa yacqiluun ayuu allah subxaanahu wa tacaala leeyahay, afalaa yubsiruun, afalaa yatadabbaruun. marka haddaad aqli leedahaan iyo haddaad garasho leedahaan iyo haddaad aqliga isticmaalaysaan, waxaan oo dhan aan soo tiriyey waxay caddeen cad u tahay jiritaanka midka waxaan oo dhan abuuray. marka waxaa loo baahan yahay kuwa ka shakisan jiritaanka allaha subxaanahu wa tacaala kii waxba abuuray, kuwa ka shakisan waa inay ayagana la imaadaan caddeyn aqliyeed ama caddeyn saynis ah ay ku caddeynayaan inuu alle subxaanahu wa tacaala jirin, mana caddeyn karaan. taas ayaa xaqiiq u ah. marka haddaad aqli isticmaalaysaan sidaas weeye. marka waxaa u maleeyaa insha allah daqiiqooyinkeyga hadday dhammaadeen, dal mar hadduu doonayo marka insha allah waa ku wada doodayna waxa soo haray. waa kaa dhamaatay. marka dal mara ku soconaayo, marka waktigaada lagama soo dhexgelin, adina ha ka soo dhexgelin. sheekh baarak allah fiik. dal mar qaado ku bilaabatay.
أستاذ وأي بلا ضامن وإن سلام يا أصحاب تآدي أدبا إن سلام يا دمانتين آسف عن سلايدز كيغو وآديستو سيدسكو أضاء مهد أدبا أسلامتين أصحاب كل جيم با وكفر حسنا عاوة ولكن أورنا أدبو أمهد سنيهي سيد دود أوغسو قيب قلي بدنا توبي كان مسلمين تؤاد بي وعرران وحي جعلين إلى هيدا كلا إني قد بطلونتان لكن الله إني كهدلان aad bay uga baqaan marka walaalkay geesinimo inuu muujiyo uu meesha imaado aad buu ugu mahadsan yahay maanta topigeena waxa waa jiritaanka Allah weeyaan topigeena maanta horudhaciigisaan buu noqon doonaa waxaan taaban doonaa taariikhda ilaahiyada bini'aadamku maxay ilaahiyada u samaysteen maxay tahay ujeedada ilaahiyada ka dambeysay waxaan soo bandhigi doonaa ilaa 20 doodood oo ku tusinaysa Allah inuu yahay wax aan jirin inuu yahay ayaan soo bandhigi doonaa kadibna gunaanadkaygaan soo qaadan doonaa marka doodahaygu waxay ku dhisan yihiin caqliga cilmiga damiirka dadnimada biologiga maxaa la yidhaahdaaye geologiga waxaasoo dhan baan soo bandhigi doonaa maanta guud ahaan haddaan isweydiino bini'aadamku maxay ahayd sababta ay ilaahiyada u sameeyeen haddaan fiirino evolutionka ku dhacay ilaahiyada si fiican ma loo arkaa ha evolutionka ku dhacay ilaahiyada haddii la fiiriyo bini'aadamku isbedel baa ka muuqda waxaa ka muuqda barigii hore inay si ruuxiyan ah ilaahiyada u samaysan jireen kadibna ay bilaabeen ilaahyo badan inay caabudaan kadibna markii dambe ay dhaheen hal ilaah oon la arkaynin baa jira inay dhaheen marka maxaa ku kalifaya dadka khubrada ay ku takhasusa waxay dhahaan baahi ayaa u kalifaysay bini'aadamku waxay ahaayeen dad ugaadhsato ah ma aysan fahmaynin dabeecaddu si ay u shaqayso aqoon la'aan baa haysay qof baa dhimanaya qof baa xanuunsanaya abaaraa dhacaya waxaasoo dhan maysan garanaynin marka waxay iska dhaadhiciyeen waxyaaba ruuxiyan ah awowyadeen iyo ancestorkii waxaas iska dhaadhiciyeen laakiin nuuri haraari wuxuu leeyahay kacdoonkii beeralayda kadib ay bini'aadamku xadaaradaha markay samaysteen bay waxay bilaabeen kadib in ay yiraahdaan ay maamulaan dadka shacabka ay dhahaan hal ilaah baa jira ilahaas lama arki karo inay yiraahdaan marka isbedelo fara badan baa ka muuqda marka dadka cilmiga sociology ku takhasusay badanaa waxay dhahaan isbedeladani waa mid ku imaanaya baahida aqoon la'aanta iyo dadka in la maamulo wax ku imaanaya weeyaan saas oo kale iyadana waad ka arki karaysaa waxyaabahani baahi fara badan aa jirtay dadku cabsi fara badan baa jirtay aqoon badan baa jirtay maanta adduunyadana way ka muuqataa adduunyada markaa saa maanta u fiiriso meelaha ay aqoon la'aanta jahliga baahida ay ka jirto waa meelaha ilaahiyadu ay ku badan yihiin hadda tusaale ahaan eeg halkan dadka filosofiyiinta ah ee wax bartay 3% kaliya ayaa ilaah aaminsan halka dadka jaahiliinta ah 9% lagu leeyahay wadamada macnaha qofba qofku uu ka aqoon badan yahay ka waxbarasho badan yahay inuu ilaah iyo khuraafaad aamino badanaa way u fududahay laakiin dadka wax bartay ma aha tusaale ahaan dadka dugsi hoose dhigta marka la fiiriyo mujida aad bay u badan tahay marka la tago jaamacad marka la tago aad bay hoos bay u dhacaysaa marka waxay ku tusinaysaa waxyaabahan aaminaadan diimahan ilaahiyadan inay tahay wax ku imaanaya jahl iyo baahi wax ku imaanaya inay tahay ku tusinaysaa haddaa fiiriso wadamada carabta xataa muslimiinta ah waa just the same way wadanba wadanka uu ka waxbarasho badan yahay ka dhaqaale badan yahay baahidii wixii ilaan dadku waxay rabaan wax ay meesha u saariyaan bay rabaan wadamada adduunka ugu baahida badan ugu gaajada badan ugu aqoonta badan waa meelaha diimaha iyo ilaahiyadu ay diloodeen weeyaan maxaa keenaya waxaan oo dhanba marka maadaama waxaan ay ahaayeen wax dad samaysteen ujeedada u samaysteenna ay ahayd dadka inay ku maamulaan dadka inay ku adoonsadaan inay dhahaan annagu ilaahay nala soo hadlay annaga basuuna doortay adduunka saa u eeg meelaha diimaha ka jira waa meelaha dictatorka hal qof kaliya taliyaha uu iska haysta weeyaan marka diimuhu waxay sameynayaan dadka xabsiye ayay gelinayaan maskaxdii baa qofka laga xiraaya waxaa la leeyahay fakirin mujeda wax khiyaali nolol khiyaali loo sawiraya qofka mujeda xur alciin baa jirta khamri baa jira baa leeyahay qofkii maskiinkii noloshii dhan baa laga xirxiraya waa dhibaatada maanta haysata laakiin dadka qaar dadka filosofiyiinta ah dadka wax bartay bannaankay u baxaan mugdigaas jahligiisa ka baxaan waxay helaan neecawda farxadda ayay helaan labadan buug waa laba buug oo cajiib runtii waa laba buug hadaa akhriso wax badan ka faa'iideyso buugga koowaad waxa uu lahaa majmuuca ilaah al-arab qabla al-islam ayaa la yiraahdaa marka labadan buug waxay ka sheekeynayaan ilaahiyadii carabtu ay caabudi jireen maxay ahaayeen say ahaayeen arrinta la yaab kale waxay tahay labadan buug marka akhriso waxa ku arkaysaa waxyaabahan hadda carabtu caabudaan magacyadan hadda Allah 99 ka lagu leeyahay al-Malik ar-Rahman ar-Rahim al-Qudus waxaas oo dhan baad ku arkaysaa
waxani waxay ahaayeen bas sanamyo carabtu ay caabudaan ayay ahaayeen marka sanamyadii carabtu caabudayeen unbaa waxaa la sameeyey waxaan la yiraahdo tawxiid waa la mideeyey un bas maxamed wuxuu sameeyey sanamyadii faraha badnaa ee carabtu caabudi jireen ayuu mideeyey oo kaliya wuxuu yiri allah baan ku mideeyeynaa tawxiid wax la dhaan sameeynaa ilaahiyadiina waa la dhahaa allah baa la dhahaa sameerti allah buu sameeyey wuxuu yiri kulli waa la dhahaa tawxiid wax la dhoo sameeyay hadaa rabtana waxa akhrin kartaa buuga oo qortay dr jallad oo qoray waa nin archaeology-ga ku takhasusay marka waxaa ku arkaysaa marka ilaahiyadii maanta la caabudaayo arraxmaan arraxiim almaalig alquduus waxaan 99 kaba waxay ahaayeen sanamyo carabtu caabudi jireen bay ahaayeen marka wax weyn oo la keenay ma aha marka dhibaatada ugu badan marka ilaahiyada adduunka marka fiiriso qaar ma soo hadlin waxba ma sheeganin laakiin dhibaatada ugu badan ee Allah haysto waxa waaye dadka waxa ay ka sheegeen sifaadka ay ka sheegeen waxay dhaheen ilaahi baa soo hadlay dhaheen mujida kitaabadiisa waxa ku qoran marka eegta marka waa wax iska hor imaanaya waa wax isduqaynaya waa wax cilmiga ka hor imaanaya waa wax bin aadan xuma ka muuqato adoonsi baa ka muuqda dumar nacayb baa ka muuqda jahli baa ka muuqda cilmigi baa laga hor imaanaya marka dhibaatada iyo fashilka ugu weyn ee Allah haysta waa buugaagti iyo wixii ay ka qoreen weeyaan dood u horeysan in soo bandhigayo waa mid qof walbaba uu akhrin karaayo qof walba uu arki karaayo weeyaan maxaa yeelay Allah marka fiiriso waxyaabaha laga sheegayo magacyadiisa sidoo wax u tilmaamayo sidoo wax u sheegayo Allah marka fiiriso waxay u muuqataa wax carab samaysatay way ka muuqataa magaciisa waa carabti buu jecel yahay wuxuu dhaqankii carabtu leeyahay nacaybka maseerka dumar nacaybka dhaqamadii carabta ayuu leeyahay waa ilaah la sido waa ilaah dumarka aad iyo aad u nacayb marka diimaha markaa fiiriso waxaa ka muuqda dhaqanka dadka sameeyay ayuu ilaahyadaasi leeyihiin allahna waxaa ka muuqda dhaqankii carabta ka muuqda magaciisa waa magac carbeed af carabi in lagu hadlo jecel yahay asaga af carabi ku hadlaa dhaqamadii carabta ee foosha xumaa buu leeyahay ee yasitaanka kibirka isla weynida khiyaamada macnaha waa exactly carabti weeyaan hatta aakhira marka la tilmaamayo dhaqamadii carabta maanta dhan lagaaga sheekeenaya maanta dhan ilaahay oo mataqaana khamri cabaay khamriya jirta lagu leeyahay wax lagu leeyahay xurul ciin baa jirta meel baa mataqaana teendha la fadhinaya dhaqamadii iyo baahidii carabta ka muuqda ilaahay dooda labaad waxa waaye waxyaabaha ay ku tilmaameen sida awoodda naxariista ogaalka ayaga ayaa isduqeynaya waxyaabahani mujada tusaale ahaan haddaad tiraahdo waxaa jira ilaah ogaal badan haddana wax walba awooda su'aalo badanaa ka imaanaya mana meel ma wada geli karaan intooda dhanba intooda waa isduqeynayaan waa isburburinayaan tusaale ahaan ilaahay wax walba og ilaahay waxaas uu og yahay ma bedeli karaa haddaad tiraahdo waa laba daran mid dooro waa haddaad tiraahdo uu bedeli karaa awoodyaa meesha ka baxaysa haddaad tiraahdo ma bedeli karo awoodyaa baxaysa haddaad tiraahdo wuu bedeli karaa ogaalkiyaa ka baxaaya marka waa ilaah isduqeynaya waaye macnaha saddexdan waxay ku tilmaamayaan ma aha saddex wax oo wada socon karaya haba yaraatee ma aha waxaa kaloo fiirisaa ogaalka ilaahay fiiri ilaahigii dhamaada walaalkeena uu tilmaamayo wuxuu ku leeyahay adduunyada imtixaan waa ku leeyahay imtixaan yaa qaada macalinka iyo ilaahay qof wax walba og soo socdo og imtixaan muu qaadaya waa maya marka inaad tiraahdo ilaahay baa imtixaan qaadaya oo aad tiraahdo dadku tijaabinaya taasi waxay meesha ka saaraysaa ogaalkii ilaahay meesha ka saaraysaa ilaan waaba og tahay imtixaanka qaadaysa maxay tahay waxa aad tijaabinaysa maxay tahay marka saas daraadeed allah ilaah ogaal fara badan ama aqoon badan adduunyada u lamaaha waa ilaah wax tijaabinaya weeyaan dooda afraad aan soo bandhigaa iyadana waa mid cajiiba ilaahay waxaa lagu leeyahay asaga ayaa wax walba qorsheynaya asagaa habeeyey adduunyada dhan buu habeeyey haddana wixii uu habeeyo ka hor imaanaya tusaale ahaan ilaahay aadam inuu geedka cuno asaa u qoray asaa u qadaray haddana aadam buu wuxuu amrayaa inuusan geedka cunin macnaha soo wax lala yaabo ma aha wixii adiga aa qortay ee qorshaysay aa haddana ka hor imaanaysaa markaasuu haddana ilaah is xanaajinaya geedka maxaa u cunta waryaha yaa ku cun ku yiri ilaahayow adiga lay qorshayso maaha waxaana ka arki kartaa xadiiska saxiixa ah nebi muuse iyo nebi aadan markay isdagaaleen ee iska qabsadeen nebi maxamed wuxuu leeyahay doodii waxaa guulaystay aadan maxaa yeelay aadan wuxuu yidhi geedkaas inaa cuno aniga wax maba ku lahaynba 40 sano ka hor ayaaba laga qoray buu ku leeyahay dhibaatada kale ee la yaab kale waxaa weeyaan ilaah baa lagu leeyahay ogaal leh aqoon leh wax walba leh laakiin xisaabta aan aqooni ka warrama ilaah xisaabta jajabta waxaa lagu dhigtaa dugsi hoosaa lagu dhigtaa bal ka waran ilaah xisaab jajaba khaldaaya
oo aan sixi karayn ka warrama hadda suuratu nisaa markaa fiiriso isku darka xisaabta markaad rubuc iyo tumin iyo isku dardarto wixii way ka badanaysaa khalad ayay noqonaysaa saasoo kale ilaahay xisaabtigu khaldaya marka ilaah xisaab ku dar ah ama jajaba khaldaya ilaah awood badan oo aqoon badan ma noqon kara waa maya ilaahay fiiri wuxuu sheeganaya fiiri wuxuu ku leeyahay aniga time maan ahay ku leeyahay I'm the time marka su'aal isweydiiyey walaalkayow timeku ma noqon karaa wax ilaahay ah timeku waa ognahay waa waxaan isbeddelaya waa waxaan xisaabinayno waxa isbeddelaya oo la xisaabinayo ma noqon karaa wax aqli badan oo laga cabsado oo maanta salaad u tukato oo af carabi kula hadasho timeku af carabi ma fahmo marka tani waxay ku tusinaysaa Allah inuusan Allah ahayn ilaahay inuusan ahayn bay ku tusinaysaa tanna free will ka fiiri wax walba ilaahay baa qorsheeyay habeeyay qaabeeyay baa lagu leeyahay haddana waxaa lagu leeyahay free will baa leedahay xaggee free will ka leedahay wax walba oo ilaahay qor haddaan samaynayo dan waxaa noqonaysaa robot sidaas daraaddeed Allah wuu iska hor imaanaya asagaa isburburinaya naxariista fiiri waxaa lagu leeyahay ilaah naxariis badan qaadir ah dadka ku dhex jira dadka la jooga saddex qof walbaba wuu afrayaa baa lagu leeyahay haddana ilaahay wuxuu daawanayaa gabar yar oo 9 sano jirta oo 30 nin kufsanayaan qayliyeysa ooyeysa ilaahayow iga soo gaar yaa rabbi ku haysa ayuu daawanayaa ma ka qabanayo ma la hadlaayo asagaana qorsheeyay waxaan inay dhacaan asagaa qorsheenaya marka ilaaha noocaas oo kale ah ee xumaanta daawanaya ee kufsiga sii qoraya gabar yar oo ooyeysa magaciisa ku qaylinaysa iska dhagaysanaya waxba ka qabanaynin maqlaaya arkaaya ag jooga ma noqon karaa ilaah no الله إلهي معها وحنا جعلان لها ما أنت عاو إنه تكون قدام بيسو آمنا ديسا إلهي وحلو قولي وأود بدنيا لقولي هاي إلهي وحلو قولي قريه سوى إلى شطاء هذا كور وحلو قولي هاي طيرا أبابيل شبرو سودا يا لقولي لكن ما أنت بالفير قريه سحوق لقوها يستا قبل يريرو مساك لباتن جراء أيا حوق كويس قريسي إيغو كبهو دبوت كودا وطا أيا قريه سنحسو على المعنى والبابا سديتا سنة الله يستا marka ilaah awood badan gurigiisa xoog lagu ma haysan lahayn marka Allah ma aha ilaah awood leh ma aha waxaan kaloo fiirinaynaa waxa lagu leeyahay ilaahay marka hadalkiisa fiiri waxyaabaha cilmiga ka hor imaanaya wuxuu ku leeyahay qof bini aadana 950 sano meel hadlaayo oo meel taagnaa baa lagu leeyahay say macquul ku tahay taasi waxaa ka hor imaanaya cilmiga sayniska suurtagal ma aha bini aadamku inay 950 sano iyo ka badan inay noolaadaan waxaa ka hor imaanaya cilmiga DNA-da iyo telomerka ayaa ka hor imaanaya saas daraaddeed Allah ilaah aqoon u leh cilmiga biologiga haba yaraatee ma aha ka daro dibidhal waxaa lagu leeyahay ba ilaahay adduunyada ninkii hadda 950 sano jira odayga ahaa baa lagu leeyahay xayawaanada adduunka jooga laba intuu ka soo qabtay iyo meel iskugu keeno oo doon saaraa lagu leeyahay kasii daran xayawaanadii buu doon saaray xayawaanada adduunka joogana waxay ka soo farcameen baa lagu leeyahay kuwaas doonta saaran bay ka soo farcameen bini aadamka dhooqaa laga abuuray baa lagu leeyahay gabdhahana feed baa laga siibay waxaasna cilmiga sayniska ayaa burburinaya saas daraaddeed Allah ilaah ma aha waxaana jeclaan lahaa caawa inay kugu dambeyso aaminaadiisa ilaaha garan la sida bini aadamku jirkooda iyo jirkooda u shaqeeyo ma la dhihi karaa waa ilaah waa maya lama dhihi karaayo wax walba waxa kaaga daray ilaahay wuxuu ku leeyahay waxaan ahay kan wax walba farsameeyo wax wanaagsan baa ahay laakiin maanta markaan eegno hospitaalada iyo caafimaadka markaan eegno sanad kasta in ka badan 8 milyan oo caruur ah ayaa u dhimanaysa farsamo xumo u naganaysa marka saas daraaddeed ilaah wax farsameynaayo wax qorsheenaayo haba yaraatee ma jirto fashilka kala fiiri ee uurku jirta waxaa lagu leeyahay ilaahay biyaha ka imaanaya dhuunta iyo dhabarka 40 cashay meel fadhinayaan taasna cilmigii aan arkayna ee sayniska ayaa burburinaya qof bini aadan ayaa nibiri calooshiisa ku jira lagu leeyahay say suurtagal ku tahay say macquul ku tahay calooshu waa acid waa ognahay taasna cilmigii sayniska ayaa burburinaya cosmology-ga waa aan u imaano ilaahay baa waxa lagu leeyahay 7 dhulaa jira 7 ciraa jira xidigaha samada lagu qorxiyay waxaasna haba yaraatee wax xaqiiqa ma aha waa wax feeg ah naxariista waa qodobka ama taqaana aadkii la yaabanahay waxa lagu leeyahay ilaahay naxariis badanaa jiro haddana dadka in la kufsado dadka in la ado suurad uu soo dejiyo suurada bilqada la suuratul anfaal la yiraahdo dadka in la adoonsado caruurta in la guursado mujida dadka in la bilqaysto dadka in la dhaco burcad nabigii dhamaaba wuxuu ku leeyahay aniga adduunyada shaqo uma joogaba wax inaan dhaco oo bilqaysto bas aan u joogaa buu ku leeyahay say macquul ku tahay ilaahay dadka dilaya dadka dhacaya dadka adoonsanaya suurtagal miya ilaah noocaasa inuu jiri karaayo waa maya qof walba waxaan ka codsanayaa inaad fikirta caawa oo qodobada aan soo dhigay ee 20 qodob ee ku tusinaya Allah inuusan jirin inaad tartiib u fiiriso isticmaal halbeega loojiga cilmiga
عقلك ضميرك ضدنمada adoo isticmaalay si tartiiba u isku weydii su'aalahan isku weydii suurtagal miya ilaahay wax walba qoray oo qadaray in uu haddana dadka yiraahdo ikhtiyaar baa leeyahay suurtagal miya maya ilaah xisaab yarha haye waa soo gabagabna ilaah xisaab yar khaldaaya suurtagal miya inuu ilaah noqdo ilaah dadka amra inay adoonsadaan caruurta la guursado dadka la dilo dadka isdhacaan suurtagal miya waa maya waxaan jeclaan lahaa aaminaadiisu halkaas caawa inay dhakaga eegta sayniska ma hadle waa ka dhamaatay sheekh Anwar ku soco wixii hadda dalmar uu sheegay burburi ما شاء الله هرتا دقيقة دوا إيو قبل دونتا مقاوة إيش يجي دونتا هرتا دل مرو واتون دقيقة شيخ كسر ها إيقبا يقول دفع دل مر نيو بسالن كمان فيلنينين وأنا أوجا وحاني أكو كعدي إناد كوالتي وحود هاي إلهية ديمها أيو كهدلي caaw doodeena ilaahiyada diimaha ma qusayso horta dooda ciwaankeedu meel baa ga dhacday doodeenu ma qusayso diimaha iyo ilaahiyadooda waxay qusaysaa Allah subhanahu wa ta'ala majra musamajiro Allah intaad ka hadli lahayd taariikh baa ka hadashay tani waxay tusaysaa cilmi darada ku hayso iyo waxa aad ku kacday inaad waxba ka ogeen midda kale waxa tiray diimaha baahi baa ku kaliftay inay samaystaan ilaah ama Allah daliilkeeda aaway waxaan adaa sheegatay waxa markaad sheegatid waxaa laga rabaa daliilkeeda waxaad tiri diimaha inay ilaah samaystaan waxaa ku kalifay baahi heentee waxa ka keentay waxaan waaba sheegtay meesha ka keentay maxaad u sheegi weysay midda kale waxaad tiray dadka aqoonta la diin ma laha niyo aqoontu horta way kala duwan tahay wadanka Iran waa wadan boqolkiiba boqol aaminsan Allah subhanahu wa ta'ala inuu jiro waxay sameeyeen misal yar oo raqiis ah waxayna ku burburiyeen misan oo malaayiin lagu sameeyay ama gantaalo malaayiin lagu ku baxday waxay isla qaraacayaan Mareykanka iyo Yahuudda isla socoto marka niyo horta Iran oo waxaan sameysatay aaminsan Allah subhanahu wa ta'ala inuu jiro loogama acbir qaadanayo wadan kale ilaah aaminsaneen ayadana sameysatay wax cilmi ku salaysan cabir ma noqonayo midda kale waxa weeyay uu ku hadlay diimaha waxa la dhahay ha fikirin ma fikirayaan u dhahay horta been baa sheegtay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن بنا آدم كالله وحو أفصحي إنا فكران قرآن كوحو كسع العليا أفلا يعقلون أفلا يبصرون أفلا يتدبرون انت صدن الله سبحانه وتعالى وحو أفصحي بنا آدم كإنا فكران مركي فكران محادعة وحادعة الله يلو دهي نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وآية عد نحن خلقناكم فلولا تصدقون محاد أو إنكر يسانين أنك نأبورني أفرأيتم ما تمنون أغلقين استعمالا مياد أجينين وحن نجا أبوري بيها دي بعد لجا أبوري وحن ودم وحي دليل أتاهي إن لو أقلي بن آدم كيلو فكرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون أيضا وحي دليل أتاهي بن آدم كإن لو أقل هذا لو أغلق استعماله مركا أنا قاعد ديمها دتك ديمها رعصنا هاي وإلهي ونو أقل هذا إن أغلق استعمالنا سؤال مركا كوتالا أذيك ياكو أقل هذا إن أغلق استعمالشي أنيقا وحايا أقل هذا بوغاكتا أنا من سنة هاي أذيك إن أغلق استعمالشي إن در حرتد إن وحفي عن سميسد عبر كاسي حقيقة قادتي ساينسكا كوما فرأيو إن در حرتد ساينسكا كوما فرأيو إن محل لها وحفي عن سميسد وحنا كفقاتد فعنان إيو حماشو إيو أقل لا استعمالو ديمها نفره ساينس كوما فرنا دين استعماشي أقلق حتى استعمال كيدا دين تا نفرت مدك لو كسو كوبي وحابي
وحولك عينو ده هادت كبي إزدلان وحاصدن بني آدم كأيو قعمه هذا كو سمست وحي بني آدم قعمه هذا كو سمستين الله سبحانه وتعالى وحول هاي ما يغير وحي هدانك ما بدلنو حتى يغيروا ما في أنفسكم إن هذه نجوا واحد قعمينا كو كنستين أيه واحد أنا كود عن مركب واحد صادم دل مرة أتكو قاعدي وحبك ما تشران مركب لا بشيء بكو شيء مركب عقلنا كري ويسي يكون بينسيد جرتانك الله سبحانه وتعالى ساينسنا وتكري ويسي يكون بينسيد جرتانك الله سبحانه وتعالى أنيجا مركب أنت أتشك تودن وكسو ذا قد بيوانا دل مري مركب وحود هاي جيتك عنين بالد هاي وعنين وحنا ودن أديك أتك قاعدي وحبك ما تشران وحود هاي مدك عليه دين عربتا آياتو سيسا الله إلو يهي عرب وحا صدن انتهتك كنت هذه وحود هاي إلهي وحو بدبدلا الله سبحانه وتعالى وحبو بدبدلا أوكي هدو وح بدبدلو واحد كبدا محلها ناسخ والمنسوخ وحبو بدبدلا تري هيكو وح بدبدلا يوابا كتشرا هي جريتانكي سيعدين وتاي هدو وح بدبدلا وانتو waxaan ku keenay ku bedelayo taasi uma aha cadeen inuu asaga jirin laakiin se waxay cadeen u tahay inuu jiro falka ah inuu wax bedelo ayaaba cadeen u ah marka maadaama aad qiratay Allah subhanahu wa ta'ala inuu yahay kii wax bedelaye oo aad u qaadatay inay cadeen u tahay inuu san jirin ee sidaas ma ahanay waxayba cadeen u tahay inuu jiro midda kale wax beddelku ceeb ma aha taqtarku markuu daabo ku siiyo doos oo arko inaad caafimaad haysid dooska uu ka bedelaa doos kale kugu bedelaya maxaa taasi adiga ay dan ku tahay Allah subhanahu wa ta'ala haduu wax noo bedbedelo sida midka taqtarku adigana dooska kugu bedbedelayo markaad ku jirtid wadka oo daawooyinka aad qaadanaysid uu ku bedbedelayo aniga markaan isbitaal ku jiray taqtarka daabo buu ii soo qoray anigoo dhamaysanin markuu arkay caafimaadkeeda inuu wax iska bedelay uu iga dhaafay iga joojiyay tan ha cunin uu dhahay mar dambe mid kale uu igu bedelay taas uu daawooyinka ii bedbedelay miyay u tahay inuu taqtar jirin uu jira bedbedelkana waxay daliil u tahay inuu asaga bajiro haddana bedbedelku weakness ma aha aniga dan ii tahay marka Allah subhanahu wa ta'ala nasikh wal mansukh waxay daliil u tahay inuu jiro haddana waxay daliil u tahay inuu asaga waxa fiican unana doonayo marka daallo maro waad ceewowday intana ana kugu filan ceeb Allah subhanahu wa ta'ala jiritaankiisa waad kari weysay inaad beenisid marka intaasi waxaan kugu dari lahaa oo aan ku soo koobi lahaa oo haddaad aqli iyo cilmi bodoonaysid waxa weeye inaad Allah subhanahu wa ta'ala ku soo laabatid saynisku iyo waxana abuursan waxana oo dhan wuxuu daliil u yahay Allah subhanahu wa ta'ala loo jiro wuxuu dhahay biyaha lafdhabarka ayay ka imaadaan waa been okay inay been tahay maxaa daliil u haysa cadeen uma haysid daliil uma haysid marka waad iska qaqaylisanayoo kowda ilaahay ha ku soo hanuuniyo laakiin ana waxaa ku tusayaa quraanka iyo aayaadka oo dhan haddaa soo daliilsatid xataa xabado oo aad tirid waxaani hadal ilaah ma aha haddaa tirid waxaa lagaa rabaa inaad sheegtid hadalkaasi inuu hadalka yahay marka in short hal aayad baan kugu soo koobayaa أبوريتانك الله سبحانه وتعالى بن آدم كو أبوري وحو دهي وفي خلقكم أفلا يبصرون أبوركينا يدما إكتان ميا مركا أبورك هداد إكتد وحي دليل تهي الله سبحانه وتعالى إنو تشرا وحانو ماليا دودي هالكاس أيو محال لها أي كسو دماتي دل مرنا وح عدين بينيا الله سبحانه وتعالى إنو تشرا وكيم ويي مركا ديما هو دانا وحي كم دي سيهين الله سبحانه وتعالى إنو تشرا واحد القهاري هاي جريتان كيسنا وح انكيري كرامالها او عقل بالغو انكيري كرين او ساينس بالغو انكيري كرين او وح والبا حتى دقن بالغو انكيري كرين دقمها بني آدم كودن وحا اوعد اني امين جرين الو جرو اله سمد يدولك ابوري دقن بني آدم ودن عرب كلمة بني آدم ودن قال يا مسلم وح دقن لها ودن وحي عدين ويهين إني آمن جرين إلهي إلو جرو أما الله سبحانه وتعالى جرا كاسان أنا كنت المامنا أبورها كون كاني أبوري وحبل ربنا أبوري مركز سؤال فضل بأن دانا يا مركز ساق
dal maro yaa kuu fasaxay inaad aqli isticmaashid ma science baa kuu fasaxay ma dhaqankaa baa kuu fasaxay maxaa aad ku qeexdaa xumaan iyo samaan anaga xumaan iyo samaan waxaan ku qeexnaa diinteena macaano islaamnimada ah alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina adiga inaad gabdhaha kufsatid inaad qof dishid xumaan baad u aragtayo anagana xumaan baan u aragnaa anagoo diinta aan ku qeexino adiga maxaad ku qeexdaa waxa inuu waxa xun yahay waxana inuu fiican yahay maxaad ku qeexdaa anaga diin baan ku qeexnaa kufsigu waa xaaraan diin baa nafartay adiga kufsigu inuu xaaraan yahay yaa ku faray yaa ku fasaxay inaad aqliga aad ka dhigatid wax aad wax ku qeexdo anaga diinta noo fasaxday adiga yaa ku fasaxay masaayis baa ku fasaxay muse awowkaaga ku fasaxay awowgaagii hore dhintay ma ku fasaxay noo sheeg anaga wax baan haysanaa adi maxaa haysataa marka waxaad haysato waa inaad noo sheegtid waayo 1 minute insha Allah dalmaro adiga askale laakiin waxaa haysatid noo sheeg dalmaro qaado waxaa maraynaa qaybihii dhexe kuwii dambe ugu dirnaa dalmar ku soco hadda ay maqlaysaan walaalkay waxaa moodaa runtii qof shubahaad ku furan yahay asagaaba su'aalo qaba ma ogtahay asagaaba su'aalo diinta iska weydiinaya asagaa shubahaad ku furan yahay marka waxaan sugaya macnaha dood inuu walaalkay soo bandhigo wax la tijaabin karo wax la baari karo wax la xaqiijin karo laakiin waxaa u muuqataa walaalkay shubahaadaa ku furanba masiixiyiinta say shubahaad ugu furayeen asagii ayaaba su'aalo qababa asagii ayaa qof wax ku furan yihiin oo kalaa moodaa marka saa ani kuu sheega walaalkayow doodaydii waxaan soo bandhigay 20 doodood oo ah ku salaysan caqliga xisaabta cilmiga biologiga cosmologiga damiirka 20 doodaan kuu soo bandhigay oo ku tusinaysa allah inuusan jirin marka wax aa uga jawaabtayna ma garanayo ilaa hadda 20 kiiba macnaha meel ku dhaaftay meel kale maa ku maqneed ma aqaano hal mid ka mid a imaada soo jawaab marka haddaan doodaada u imaado aniga hadda wax doodaadii sheegasho un bay ahayd mogta dhulkan yaa fiiri cirka fiiri ilaah yaa sameeyey waxaas waa sheegasho adiga keligaa maaha diimaha kaloo dhanaa sheeganaya waxaan oo dhanba marka waxaasi waa sheegasho aniga waxaan rabaa markaa leedahay dhulka allaha sameeye markaa leedahay waa inaa isiiso caddayn ka duwan dadka kale ileen hadda ilaahadda shuushuba way sheeganaysaa mogta naaga ilaahyaa jiro niman ilaahyaa jiro sheeganaya waxaan aad sheegayso dhanba mogtahay mid walba wuxuu leeyahay anaa cirka sameeyey anaa dhulka sameeyey anaa saan yeelay iyo mid walba leeyahay marka taas dood ma aha walaalkayo tan kale ee ku saabsan ee aad tiri wax walba oo koos le waa in koos u yeesho taas adigunbaa iskaga jawaaba mogta adigunbaa tiri adigunbaa hadda mataqaanaa waxaa la yaab le qof intuu isaga su-aal isweydiino isagana iskaga jawaabo adunbaa iskaga jawaaba ma ogtahay adaa waxaa tiri wax walba koosuu leeyihiin haye ilaahay koos yaa samey ilaahay koos ma laha dhahda marka dan caqliga waa ka tagtay marka special belief inaad samaynaysaa mujeeda caqliga hadda isticmaalayna waa ka tagtay special belief inaad samaynaysaa waxaa jirtaa leedahay allah wax la dhaho oo aanan caqliga loo isticmaalaynin dan doodii waa ka baxsatay markaas laakiin haddaan u imaano causalityga haddaan u imaano quantum physics haddaan u imaano causality maba ka shaqeeyaba waxyaabaha yaryar causality kama shaqeeyo waxaan baasabay kama shaqeynayo arrinta la yaabka leh runtii aadka ula yaabaa waxay ahayd markii aad tiri ogaalka aad ka hadlaysay waxaa tiri isbabedelka waa caadi baad tiri walaalkayo fakir kamaada fakirin baa umalaynaa doodaas markaa ka hadlaysay ka fakir walaalkayo waxaan ka hadlayno waa ilaah awood wax walba og wax walba soo socdo garanayaa marka ilaahay wax walba soo socdo garanaya sidoo wax u bedelayaa macquul ma aha mogtahay macnaheedu waxa waaye ilaahaas ogaal buuxa ma laha waa markii aan ku dhahayay dhibaatada allah haysata waxay tahay waxyaabahan sifaadka ay siinayaan ayagu waxay islahaayeen waxaan buunbuuni waxaan kor u qaada balabala ka dhiga isdhahayeen mogtahay dadka ku adoonsada islahaayeen laakiin caqliyan ugumaysa fakirin marka haddaad tiraahdo ilaahay baa hadda wax amraaya haddana wuxuu leeyahay tus xalaal waa ka laabtay dan waxaas ilaah ma noqonayo marka haddana tusaalihii aan usoo qaataan la yaabanaya waxaa tiri dhakhtarkayga maanta daawo igu tijaabinaa wax yar kadib haddana wuxuu leeyahay daawada waa kaa dhimaa ee dhakhtarku ogaal buuxa ma laha dhakhtarku wax walba soo socda ma garanayo adigu ku tijaabinaya irbadu hadda kugu duraa jirkaaga dhiiggaagu fiirinaa maxaa isbedelaya kadib haddana kaa yarayna ama kaa badinaa waa wax caadi ah waay taas laakiin allah
الله فيري يدختك يا أسباب بردكتي مركب ولالك اسمه أجد لكن الله إنه سنجرين أديك أفكار يا با نوع عدينا يا با محايا لو حاليا هي الله ملها أقال بوحة الله وحبوك تتجابنا يا الله واسيد دخترك أو كله حد وحبوك تتجابنا وكابدلا وكابدلا مركب isla adigu unba Allah caaw burburiyay waana ku farxsanahay qofka markuu hadalka badiyo wuu is ilaawaya maskaxdiisu is ilaawaysa waxyaabo run ah oo qalbigiisa ku jira ayaa ka soo fakanaya waxa ka hadashay akhlaaqda wixii aan kugu haysta way mogtahay ilaahan aan leedahay waa ilaah fiican waa ilaah wanaagsan ee hadana faraaya dadka in la adoonsado intuu nabiga la soo hadlay wuxuu yiri يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ألوليه إله أنت لصو هذا وحليه دتك أدونسو قبلها كفسو مجد دتك حوله هذا دع ألوليه صورة ما جرتو صورة بالقدر له وحكى لك مش كيسو سيدا وحلا بالقيستو سيدا وحلا دعو سيدا الله بوب بس هيك شيء كينيسا نبي محمد واكي يريبا أمرت أن أقاتل الناس دتك إن دلو آب إله إفروك ليه مرك إله وحفرايا دتك إلا الدلو إله فرايا وحين لا دعو إله عرورتا ilmaha in la guursado la kufsado faraaya إله dadka in la dilo faraaya sidee ilaah ku noqon karaa walaalkayow aan waro walaalkay wax yar fakir mujada maskaxdeena ma aha dad jaahiliina inay ku ciyaaraan ma aha wixii lagu shubay waa ogahay sida dadkan silsilada ku xiran oo kala tahay meel lagu gali adoo yar waa lagu shubay aniga xataa saasan ahaan jiray box yar lagu shubay waxba lagu shubay way ku dhibay marka runta aad ay ku dhibay hadalkaagana way ka muuqatay marka anigu waxaan ku dhihi lahaa oo kaliya walaalkay fakir ilaah ficiladan dadka faraaya ma noqon karaa ilaah ma noqon karaa run ahaantii waa maya ilaah ma noqon karaayo waxaa ka hadashay biyaha dhabarka sayniska ka hadashay waxaa tiri dalmarow biyaha nimanka inayna dhabarka ka imaanaynin mataqaanaa yakhruju min bayna sulbi wa taraayib aysan ahayn maxaa caddaynaya sayniska anigu waxaan u maleynayaa qof Kenya ku dhashay at least high school soo dhigtay ma garanaysa inaad tahan ku maleynay walaalkay wax very clear way oo basic high school ka xataa lagu dhiganayo way hadaa jaamacad gasheen waaba ku dhiganaysaaba biyaha raggu intay ka imaadaan intay ku sameysmaan xagee ka soo baxaan waa wax basic way ina maanta halkan la soo istaagto oo tiraahdo dhabarka inay ka soo baxaan cadeen maxaa u haysaa waxay ku tusinaysaa sida bini aadanka aqligooda loo xadi karaayo adoo maanta 2026 jooga waxaa ku deedaysaa biyaha nimankuna dhabarkay ka soo baxaan biyaha gabdhuhuna dhuuntay ka soo boodaan 40 cashay meel fadhiyaan come on guys runta aan isku sheegno waxaas qof bini aadana oo aan aqoon badan lahayn oo qarnigii lixaad noolaa iyo qaabku nolosha u arkaayo waay maxaa yeelay ukunta wax la dhaho ma yaqaano ukun ma arkaayo biyaha meesha ku samaysmaa ma arkaayo mujida marka waxaas aqli ma aha walaalkayo marka isku soo doodayda caawa waxay ahayd inaa idin tuso waxyaabo badan oo branki ah in lagu sameeyay in annaga oo yar been badan naloo sheegay laakiin sayniska ma hadla maanta dad waaweyn baan noqonay dad fakiri karayaan noqonay marka waxaa lagaaga baahan yahay oo kaliya waxaan la sheegayo qiime ha ka baqin saaxiib ha ka cabsanin qiime ficilada iyo waxyaabaha sifaadka ilaahay maxay yihiin horta isweydii labadii buug aan ku sheegayna bal baaritaan ku sameey labadan buug akhri hadaa ku arki weydo sifaadkan Allah lagu leeyahay ma arrahman arrahim malik hudus waxaan hadaa ku arki weydo ana iqabso laakiin way ku qoran yihiin waxaan waxay ahaayeen sanamiyay ahaayeen in maanta sanam dhagax ah oo qof carab ah oo caabudi jiray inuu maanta kaaga cabsiyo oo adoo 2026 nool cilmiga iyo aqliga iyo damiirka iyo bani'aadamnimadii ka xiro shaqadii aad shaqaysan lahayd ka xiro makarfoona aad qaadato wadooyinka ay istaagto inta shaqaysan lahayd lacag samaysan lahayd ani waxaan ilaa taas waa dambi laga galaayo aqliga qofka laga galaayo wayaan marka waxaan ka codsanaa ha isdhihin dalmar muslim ma aha waxaas ma aha cadaynta aan ku soo bandhigayo eeg walaalkayo waxa eegtaa oo qiimaysaa dhaqamada Allah fiiri ma wuusan lahayn dhaqamadii carabta magaciisa ma waa carab ma wuusan ahayn sifaadkiisa iyo wixiisa soo nin oo kale ma aha mujida soo naciib kama buuxo soo sida carabta dhaqanka carabta soo ma laha isla weynidii soo ma laha Allah waxa eegtaa sifaadka Allah hadda walaalkay ugu baqirtayba ilaahay ogaal buuxa ma laha uu isbedelayaa eeg way ilaahay wax walba garanaya sidoo wax u bedelayaa tush u leeyahay tusaalahan salaada aad tukataan waxa lagu leeyahay konton ahayd markii hore marba nabi maxamed ku laabana ilaahay waxa iga dhin haye shan baa ka dhimay ilaahay waxa iga dhin shan baa ka dhimay
marka ilaaha aanan garanaynin dadka wax dantooda ah oo wax tijaabinaya de ilaah ma noqon karayo ogaalkii meeshuu ka baxaya waxaa fiirisaa xisaabta fiiri siday ku dhacda inaa lagaa dhaadhiciyo ilaah xisaab jajaba aan aqoonin inaa maanta ka cabsato jajabta waa dugsi hoosaa lagu dhigtaa suuratu nisaa keliya fiiri cumara intay qabsatay arrintan uu meel u aado waaye markaasuu markii dambe qur-aankii uu bedelay cumar wuxuu sameeyey wax la dhaho caawil wax la dhahu sameeyey uu ka tegey ilaah xisaab khaldahay ka warrama saaxiibyaalow ilaah ku dhahay I am a time see time uga baqaya saaxiib see time uga cabsanee come on guys Soomaali haddaad tihiin time ana ahaw ku leeyahay see time uga baqaya ilaahan free willka aan lahayn fiiri wax walba waa qoran yihiin wax walba waa la qadaray adiga dhan roobadaa tahay macquul miya waxaas ilaah waxaa sameynaya oo wax walba sii qoraaya adoo caloosha ku jira 120 casho yaa lagugu geliyaa lagu leeyahay macquul maaha waxaas caqli gal maaha waxaasan ilaahay maaha waxaan rabaa cabsidan inay kaa tagto bal ilaaha ka waran lagu leeyahay dadka wax kufsanaya wuu ag joogaa wuu maqlaaya wuu dhegaysanaya gabadhaas maskiinta ooyeysa laa ilaaha illa allah ilaahayow iga qabo codkeed inaa maqasheen aan umaleynaa gabadhaas lagu kufsanaayo meesha 30 ninaa kufsanaysa ma ka qabanaayo ilaa ay ka dhimatay gabadhaas maskiinta marka ilaaha daawanaya gabadh yar oo 9 jira oo la kufsanaayo ooyeysa daawanaya waxaas ilaah ma aha ani caawa waxaan rabaa baabkaas dhan iska xirtan caawa inay kugu dambayso cabsidiisa inay kugu dambayso ilaaha gurigiisa la haysta ka waran aaway bootadii suurta fiil aaway طيران أبابيلان صادري بلاي مروديان صادري انت هذا وحي ورقبايا يا رب دلمرو وشيخ مركان waxaa ugu beenaa waa open discussion waaye labadiina 10 daqiiqo waa dood furan waa anime soo dhexgalay ku socdo 10 daqiiqo dalmaro horta soo dhawaaw dalmar hada furo codka waa cross question waa ma ogtahay su'aalaha is weydiinaynaa dalmaro horta su'aal fudud baan ku hayaa anaga markaan diin haysanno oo aan aaminsannahay Allah subhanahu wa ta'ala oo aan aaminsannahay qur'aanka horta aqliga kama cararno ilaahina wuu noo fasaxay inaan aqliga isticmaalno afalaa yacqiluun baa la dhahay law kunna nasma'u aw nacqilu ma kunna fi ashaabi saciir law kunna nasma'u haddaan ahaan lahayn kuwa wax maqla aw nacqilu ama kuwa aqligooda adeegsana ma kunna fi ashaabi saciir marka naartu waxaa lagu galaa qofka hadduu aqligiisa isticmaalin aqligaaga haddaad isticmaashid waa inaad garatid inuu alle subxaanahu wa tacaala jira su'aal dalmarow akhlaaqta fiican iyo akhlaaqta xun yaa ku faray su'aal labo maxaad ku qeexdaa akhlaaqta fiican iyo akhlaaqta xun saddex waxaan ku weydiinayaa saynisku muxuu ka qabaa akhlaaqda darman ima qashaa aku maqlaahay aan kaaga jawaabo walaal akhlaaqdu waa nidaam habdhaqan ah oo ay dadku ku dhaqmaan waaye wax la isfarfaraya ma aha intee ka keentay akhlaaqda aniga aan isticmaalo waxaa la dhahaa akhlaaqda humanistiga la dhahaa marka akhlaaqda waxaan ku qiimaynaa cilmiga caqliga damiirka dadnimada intaasaan ku qiimaynaa marka akhlaaqdaydu waxaan ka qaataa wax yar sugaan ku dhameeya walaal aniga waxaan ahay humanist aa la yiri ma aha wixii waa akhlaaq ku dalaysan cilmiga caqliga damiirka dadnimada mid ku salaysan waa akhlaaqdayda waxaa tiri waxa xun iyo waxa fiican maxaa ku kala saartaa baa tiri waxaan ku kala saaraa waxa fayadhowrka u xun iyo waxa fayadhowrka u fiican taasaan ku qiimeeya waxaa tiri saynisku akhlaaqda ma baari karaa haa waa inaad akhriso buuggii uu qoray Sam Harris ee la yiraahdo buuggiisa da akhriso wuu ku qeexayaa marka akhlaaqda qayb dhan oo waxaa jirta evolutionary ah oo ay saynisku baarto xaggee ka imaatay sidee wax u baartaa maxaa daarmay hadda maskaxdaada qayb dhan oo waxaa jirta akhlaaqda qusaysa ayaa jirta oo qofka marka uu dareemayo qofka kale dhibaatada gaaraysa uu dareemayo u daarmaysa marka anigu akhlaaqdeedu humanist weeye marka adigana aan ku weydiiyo sidoo kale intay weydiinin waxaa tiray sug ha ka cararan su-aasha anaa ku weydiiyey waxaa tiray akhlaaqdu dhegeyso hadda way weydiin doontaa weli lama gaarin ani adi hadda wax iswareysanahay inaan adigna waa ku gudbin doonaaye waxaa tiray akhlaaqdu waxaan ku qeexaa aqliga sax sidaas bay dhahday maho humanist baan ahay akhlaaqdu fiiri waa ku dhegeysanaa sug sidaa dhahdaa kuu sheegi rabaa waxaa tira humanist baan ahay
akhlaaqdu waxaan ku qeexa aqligeyga sooma dhihino saas ma ku dhihin hadda walaalkayo Ayay ku celi, maxaa ku dhahda akhlaaq? nidaamka humanistiga waxaan ku cabirnaa cilmiga dadnimada caqligeenna garashadeenna dareenkeenna ayaan ku cabirnaa okay Hadda waxaa fahmi tiri fahmi. cilmiga Hal wax sug keliya ma ah. cilmiga sug Ah. cilmiga cilmiga damiirka caqliga damiir- damiirka dadnimada taasaan ku qeexnaa okay su'aal marka cilmiga damiirka iyo caqliga ma og tahay intaasoo dhan in lagu kala duwanaan karo ma og tahay cilmiga waa lagu kala duwanaan karaa damiirka waa lagu kala duwanaan karaa caqliga waa lagu kala duwanaan karaa wax adiga kula fiican oo damiirkaagana ku tusay caqligaagana ku tusay caqligaana ku tusay ayaa waxay tusi kartaa qof kale damiirkiisa caqligiisa iyo cilmigiisa inay sax tahay adigina xumaan kula noqoto soo saas maahano ها لكن waxaan isticmaalaynaa mastarada waxaan isticmaalaynaa well-beingka taasaa kaa maqan adiga waxa la isticmaalayo waxaa waaye ha waxaan isticmaalaynaa adiga ha sugde walaalkayo waa ii sheegto waa ii sugde sheegto walaalo de inaan hadla ma ogolin dhibaatada ku haysato inaan ku sharxaan rabaa wax yidhi jaanis degdegin aan ku sharaxo dib ma laha sukar saa u fahanta sugade ma waa ii imaan doontaa sukarka waa ii imaan doontaa sug waa ku siinaa waqtigaage horta waxaan ku gudubnay gasba waxaa samaysaa asaga su-aalihiisa hay weydiin anna markaygaan weydiinaa marka hay ku soco adna igu soo haye waaya marka waxaa samaynaynaa sheekh anwarow 5 daqiiqo si 5 daqiiqa ha Sugade, maya, ada aniga- qaado su'aalahaada weydii markaa weydiiso saas asagana ma 5 aha daqiiqo qaadanaya haye gespa inaad dalmar keli wax ka dhigaysatid horta qaladaa ku tahay adiga waxaa tahay dhacdhacaad dalmar haye ninku waaya kugu soo carro haye seerabta dalmar ninku kugu soo carro hayele u dheh anima ay dhigaysatid haye seerabta waaya seerabta tan waxaa la dhahaa crossfire waxaa bay qofka inuu ka cararin su-aasha la isku qabsado ma aha debate hadda waa crossfire waxaa bay qofka wuxuu sheego afkiisa in lagu qabto marka dalmar uu marra markii waxa uu sheegay inaan afkiisa ku qabto dalmar hadda wuxuu dhahay caqli cilmi iyo damiirka waa lagu kala duwanaan karuu dhahay marka cabir ma noqonayso cilmina caqli ma noqonayo Ku dhihina. cilmina cabir ma noqonayo anoo soo taagnaa baan iga sheegaysaa Wiilkan waxaan caqli ma diidanayaa noqonayo. waxaan diidanahay fiiri anwarow waxaan diidanahay wellbeingka fiiri isku saanoo imaano kale aan diidanahay sukada wellbeing waa waxaan diidanahay maxay waxaan rabaa fiir anwarow saanoo kale sayna u dhicin 5 daqiiqo adiga hayso oo aad saa rabta ii challenge garaynayso anigana ii ogolow inaan saa raba ku challenge gareeyo oo awood diyaar waaye noo kala diyaar qayb. waaye hadda ku soco Shanta daqiiqo qaado haye. waxaa isku afgaranay ku soco adiga ku siina waqtigaada iska leh waxaa isku afgaranay cilmiga damiirka iyo caqliga inay cabir ahayn waxaa cabir ah wellbeing waa maxay ii sheeg bar wellbeingka aad hadda sheegaysa ii sheeg waxaa la isticmaalayo fiiri waa inaad fahantaa la rabaa ma aha ilaahay baa igu yiri isaana lagu yiri kitaab baa lagu yiri ma aha dalmaro ilaah ku midaydin walaalo ilaahna ku midaydin inaan ku sharaxaan rabaa come on guys naga dhaaf fiiri walaalkayo annaga ilaahana yiri iyo kitaabay ku taallaa ma aha waxaan isticmaalaynaa caqliga cilmiga damiirka dadnimana isticmaalaynaa masterka aan ka duulaynana waa masterka fayadhowrka la yidhaahdaan ka duulaynaa waxaani bulshada iyo noloshu wax caawinaya miya mise waxani waa wax bulshada iyo nolosha u xun tusaale ahaan ilmo yar hadda in la dilo waa wax nolosha u xun bulshada u xun waaye mujeeda laakiin ilmo yar in la caawiyo ama dad in la caawiyo wax wanaagsan waa marka aniga akhlaaqdeedu waa masterka humanistiga isticmaalaa dalmaro waa kugu qabsan rabaa si fiican dhegeyso isku qabsaso way mogta hadde waxaa tiray waxa xun iyo waxa fiican waxaan isticmaalayaa cilmiga damiirka iyo caqliga cilmiga damiirka iyo caqliga waa lagu kala duwanaan karaa xataa fayadhowrka waa lagu kala duwanaan karaa bulshada qaar waxay u haysataa wax adiga kula xun inay ayaga u fiican yihiin wax adigana kula fiican inay ayagana u xun yihiin for example bulsho waxaa jirtaa qamriga ayaga u arka inuu yahay wax xun fayadhowrkooda wuxuu tusay qamriga waa xun yahay bulsho waxaa jirtaa fayadhowrkooda wuxuu tusay qamriga inuu fiican yahay marka fayadhowr iyo wellbeing iyo caqliga iyo damiirka waa lagu kala duwanaan karaa marka wax lagu kala duwanaan karo laguma midoobi karo laakiin muslimiintu waxay haystaan qur'aan ay ku midoobeen sukade waxay ku midoobeen waa qur'aanka wuxuu sheegay qur'aanka kama cararaan caqliga waa kula duwanaan karnaa damiirka kula duwanaan karnaa labadana hadda wada sheekaysaneen khudbada gashay fiir walaalkayow waa ku khaldantay adiga waxaa u malaynaysaa masterka la isticmaalayo dadka inay tahay dadka ma aha qofka hadda wuxuu iska dhaadhicin karaa khamrida inay fiican tahay laakiin waxa la eegaayo natiijada ka dhalanaysa eegayna annaga maxaa ka dhalanaya cudurro maa ka dhalanaya xanuun maa ka dhalanaya xumaan maa ka dhalanaysa soo wax walba oo nolosha iyo nafta dhibaataynaya
وحوم واي شرعي على قصة صاريا ولا جوجينا يا مجدا ماها أنا دينتي ذو حيتري خمري عبوا اسكعبها ماها حول عمل منين أنا هيوم من استيقو بين آدنا تهي وحي نلش يدك أحن ولا جوجينا يا وحي أفي عن ولا سيدينا يا مجدا وحن أليدين أفرن هلا أفرن بوسنا وحن أليدين waxaan ku dhahay bulshada horta way ku kala duwan yihiin wax badan bay ku kala duwan yihiin hadda ka soo qaad haddaan aniga ma socono waa ku xanuunsana waana ku dhimanaya laakiin ninka Chinese-ka hadduu ma socono kuma dhimanayo waayo jirkiisa la qabsaday mas'uulinta iyo baraambara cuninta jirkeega lama qabsanin marka bulshada wax xun intay la qabsadaan fiican ay u maleeyaan adigana wax fiican ayaa intaad la qabsatid kii waxaas fiicnaa xumaan la'aana oo kugu caynaya marka bulshada waxa xun iyo waxa fiican way ku kala duwanaan karaan adiga wax baad u arkaysaa inay fiican tahay asagana wax buu arkayaa inay xun tahay marka waxaan ku weydiiyey maadaama waxaan lagu kala duwanaan karo waxa muhiimad ah in la helo wax dhammaan bulshada wada mideen karo maxaa ma wada mideen karaa ilaah baa dhageyso aniga marka aqli isticmaalo allah ayaa mideen kara bulshada dhan bini aadamku jirkooda suu u shaqaynayo saymaan nahay macnaha ha ka dhigin qofaa sun cabaaya iyo waxaasi macnaha waxani bulsho ahaan iyo dad ahaan iyo naf ahaan wixii dhibaato keenaya annaga waa joojinaynaa wixii wanaag keenigana marka waxani fiiri ma aha haddaan aniga dil u arko inay fiican tahay adigana dil u aragto inay xun tahay maxaa noo dhexdhexaada marka لكن دلك وحفي عن ما قف بحنون يا سما قف ودبعتين يا كده واحد اوكي قف دو حنون جيو تقتركم مركو قف قاليو حنون بدريم يا قف كاسي ما انه كده فعل قليتان فاذا وجر تقف كثير لكن اديغا ادي حد اللي قد ما جعشاه ما يهدي انا ادي اللي قال بس معناها جولدن ولكن جولدن رول وحلا داجر او aniga nafteyda waxaan jeclayn in lagu sameeyo marraba dadka kale inaa ku sameeyo ama veil of ignorance wax la dhaho kaasaan isticmaalaynaa فيري هذه اللي قالوا مرتد لكن لوضع واقلي وعنه ساعة واقلي هذا اللوء كما حلينا دلان كحلينا موراليتي لوضع مقصية قصية ما هي لوضع يعرق كل أبوك شاف والله موراليتي كهليس موراليتي وبني آدم كوا حيوان كما حلينا دلمرو فيري دلمرو وحكي لك ويدينا دقيسو أو فضوط هذانا عقلي دميرك دقيسو عقلي يا دميرك دلمرو وحيرا وهرس كما وهر هي كسعود عقلي يا دميرك عقلك دميرك iyo cilmiga waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxa lagu kala duwanaan karin waxa weeyay midkii waxaan oo dhan noo dajiyo oo Allah subhanahu wa ta'ala ah iyo maxaa la xukunka oo Allah subhanahu wa ta'ala noo soo dajiyay marka dalmaro aqliga waad ka cararaysaa waxaan u maleeyaa meel aad u cararayso inay fikirin aqligana cabiraad ma aha ma noqonayo cabiraad marka waa mahadsantahay sheekhan wala marka 5 daqiiqo maamulkeeda waxa waaye waa dalmaro askari asaga su'aal ku weydiinayo ay weydiyo aniga waa fadhiyaan sheekh wara waa ku salaamay qodobka bilowday aan ka bilaawno sidee ku dhihi kartaa macnaha allah wax wanaagsan ka imaanaya asaga oo allah faraya dadka in la adoonsado aayada daatan ku soo akhrinay dadka in la adoonsado milku yamiinka in loo galmoodo macnaha adoonsigan muslimiintu waxay ahayn wadamadii ugu dambeeyay adoonsiga laga joojiyay سعودي عربي 96 adduunka kala ka joojiyay dadkii humanistiga ahaa baa yiri adoonsiga wax fiican ma joojiya marka sidee ku dhihi kartaa ilaah naxariis badanaa jiro adiga oo quraankaaga iyo xadiistaada laga helayo adoonsi laga helayo dalmaro horta ma ogashahay ilaah inuu nafaray adoonsi ma ogashahay الله إنه نفر أدون سما بشر. سيدا شرفت لنا كأجي جواب أنا إيجي جواب وحنا كده هاي. هوا كأجي جواب هاي. مركا. دقيسو. سو هوا كأجي جواب دقيسو. دلمر. على كابول هذه الله. أنا سمعك وقوم سمينين. هذا وقتي. أيوة كأجي جواب هاي دقيسو. هيا كسر. وكأجي جواب هاي ها. أدون سيا كهذا لا يا. دلمر وحو أقال هذه الله سبحانه وتعالى إنه نفر أو أدونسي. جواب معناه تهاي ها جواب ما دام هذا كجواب هاي ما دام الله نفر أدونسي دلمر وحو قرتي هرت الله إلو جرا وهدنا تذكر فريا أدونسي مركا جريتانك الله هو أقلاده ونفهنسين الله إلو جرا لكن سؤاشي سوحوي ما دام الله سبحانه وتعالى جرا أدونسي محقوق أقلاده وسؤاشي
marka waa ogolaatay adoonsiga waa ka gudbaynaa su'aashayda labaad marka anaa maamulanahay hadde maamulkayga waaye maamulkayga waaye anaa ixtiraam fadlan please adigana waa ogolaatay alla inuu jiro alla inuu dalmara iskale ma ana ka jawaabay dawladda kama jawaabin no ilaahay adoonsiga waa ogolyahay jawaabta waa bataa sukade jawaabta fiir walaalkayo waa ku soconaynaa jawaabta ma dhamaan jawaabta ku dhamaan wixii waa ay qasaysaa ceeb waa shantan daqiiqo asaga iskale sheekh amar nin weyn laakiin jawaabta aniga iskale waa igu daraysaa walaalkayo waa igu daraysaa ani su'aasha waa ku weydiiyey fiiri qofka waxaa la rabaa 30 sakin inaad su'aasha lagu weydiiyo uga jawaabaysaa la rabaa waa ka jawaab waa ogolaatay adiga waa ogolaatay alla inuu jiro waad ogolaatay alla inuu jiro dhib ma laha waxaan kaloo ku weydiinayaa maadaama allah uu leeyahay meel walba waa joogaa waxna waa maqlaa waxna waa arkaa uu leeyahay see ku dhacday gabar maskiina oo la kufsanayo oo ooyeyso inuu daawado dhagaysto ag taagnaado kana qaban waayo maxay ku dhacday okay dalmar haddana wuxuu ogolaaday allah subxaanahu wa tacaala meel walbo inuu joogo wax walbana uu arkayo uu haddana daawanayo gabar la kufsanayo okay haddana mar labaad buu dalmar ogolaaday allah subxaanahu wa tacaala inuu jiro markii hore wuxuu ogolaaday allah wuu jiraa haddana adoonsiga ayuu ogolaaday haddana wuxuu dhahay dalmar allah subxaanahu wa tacaala wuu jiraa meel walbana wuu joogaa gabar la kufsanayana wuu arkayaa marka tani maxay tusaysaa toobiga maanta ka hadlaynay meeshaasay ku dhammaatay ficilka iyo waxa uu sameeyey waa maalin kale waa laga hadli doonaa adoonsiga laga hadli doonaa gabdhaha la kufsana laga hadli doonaa laakiin jiritaanka waa isku afgaranay wuu jiraa بليز احترام waqtigaaga waaye ficilka cabo dambe waaye cabo jiritaanka waad ogolaatay سان عيب وني وين اسكو خشو فضلا ديننا ومثل jiritaanka waad ogolaatay sheekha kugu qoran fiiri waa ogolaatay marka ilaahay inuu daawanayo arkaayo waxna ka qabaneenin waa ogolaatay okay thank you intaas ii duuba saaxiibayaalo okay su'aashayda saddexaad aan ku weydiinayo ayaa waxay tahay sidee ilaah ogaal badan leh waxa sheegataan in allah uu leeyahay ogaal wax walba inuu garanayo sheegataan sidee ilaah ogaal fara badan leh buu haddana wixii uu ogaa uu haddana isku beddelaya oo imtixaan u qaadaya waaba og tahay natiijada garanaysa wixii dhan baa garanaysa say ku dhici kartaa sheekh okay hadda kaga jawaab dhigay horta allah subhanahu wa ta'ala adoonsi ma farin gabar hala kufsadana ma dhihin wax walbana uu og yahay midda kale waxa weeyay maadaama intaas oo dhan aad ku tilmaamtay jiritaankiisa waad ogolaatay allah subhanahu wa ta'ala adoonsi bini aadanka ma farin inay sameeyaan الله سبحانه وتعالى كفسنا مفسحين وعالم الغيب وشهادة كون كانوا ننو كبر هايا وحو البودع عينا علم قد أوليه هاي مركز دل مرو وحا كده لنا يوفي لذا اي مسلمين تسميان يو عدكو المام يسيد الله سبحانه وتعالى يا فعل ذا سيئو أقل هذي ونوها بين كله عاوي بتوبكو هكا عررين وجريتانك الله سبحانه وتعالى jiritaanka caawi waxaad ku soo koobtay alla inuu jiro oo ficiladaasi aad ku tilmaamtana ay jiraan ficiladaasna waa u imaan doonaa alla wuu jiraa su'aashada afraad fiiri walaalkii waxaan ku weydiinayaa nuux waxaa la yidhi 950 sano uu hadlaayay oo dad la hadlaayay oo dad la sheekaysanayay dadkii uu la hadlaayay markay diideen ilaahay intuu xanaaqay oo cadhooday buu adduunyada dhan baabi'iyay oo burburiyay markaasuu doon alwaaxa inta la sameeyey baa laba xayawaanad doonta la saaray xayawaanad adduunka joogana labadaas doontii la saaray ka imaadeen ma kula tahay run in qof bini aadana 950 sano uu hadlaayay ma kula tahay run in uu qof 950 sano uu hadlayay anaga toobigeena maanta qof 950 hadlayay ma aha dooda caw qof 950 hadlayay ma qusayso toobiga ha ka caranin adoo mulxid ah ayaa ka sii caranaysa toobiga qof 950 sana hadlayay ma aha toobiga caaw toobiga waxa waay allah ma jira mise ma jiro please aan ixtiraamno nuux 950 sano hadlayay doontii nabi nuux ma aaminsanina doontii toobigeena nuux ma aha toobigeena caaw nuux ma aha ha ka caranin jiritaanka allah baan burburinayaa fiiri ilaaha ee allah jiritaankiisa iyo nuux 950 hadlayay maxaa soo qusaya ها واحد كتسين أنا بنتها ساينس كبربرينا هذا الإلهي هذيك نوح إنه 900 في آيات القرآن كان نوح شيء جيسا 900 إنه كنت إنه هذا سو هذا الإلهي معها ساينس كبرك صورة قال
ها سوق ولا لو انا ما مرناي علمك ساينس كو صوتا ما بربرنا يقف بني ادم 950 سنه هدلاي aayad ma jirtaa 950 sano bini aadan ma jiri karo dhehayso aayad waxaa jirtaan ku yiri dhahaya nuux 950 sano uu hadlaayay dadka la hadlaayay science ma jira dhahayo bini aadan 950 sano jiri ma jiro noola ma jiro dhahay ma jira ma jiro yes waana fiiriso high flick limit and telomeres waana fiiriso macnaha DNA hadalkiisa noo soo qaadanaysaa waa fikir bini aadan fikir bini aadan hadana ku laabanaysa science hadana leedahay science ka adees dalmaro fiiri nuux 950 sano jiro iyo jiritaanka alle maxaa iska quseeya adiga fiiri maxaa iska quseeya allah wax been uu dadka u sheegaya science ka burburinaya hadalkiisi okay allah muxuu sheegaya sug allah muxuu sheegaya allah wuxuu leeyahay qof bini aadan 950 sano hadlaayay waa meel beenam surun marka fiiri walaal waxaas waa been science ka burburinaya walaal isdaji hada walaal waa fariirtay waa la sheegay beenam surun waa been waay 950 sano qof hadlaayay ma jiro qof wax been waay tire marka waxa noo cadeysay allah inuu been sheegay taasi waxay cadeen u tahay inuu jiro oo hadana been sheegay jiritaan ilaah been sheegay ilaah been sheegay shir jirmiya maya fiiri dimala su'aasha u dambaysa fiiri jiritaanka ilaah been sheegay jiritaanka waa ogolaatay been u sheegana dhahday waxa jiritu been u sheegay hay jiritu u hadla ilaah been loo waay dimala gasba su'aasheedu u dambaysa ugu daraysa maxaa 10 daqiiqo siinaysaa su'aasheedu u dambaysa adaa iga soo dhaxgalay hadii way boobays bogtaani 5 su'aal aan leeyahay ku dhahay waxaa la rabaa su'aal ay weydiisay leeyahay 5 su'aal hadda leen balay sheekh inta u degdegaysaa aniga 5 su'aal maya adiga jawaabaha su'aalo 5 su'aal waa sheekh adiga jawaabahaaga meelo kale aadaysa moogta aniga exact aan kaaga jawaabay fiir marka su'aasheedu u dambaysa waxa waaye aayadda quraanka ay dhahaysa falyandur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib macnaha in biyaha shahwada raguna dhabarka ka imaadaan biyaha gabdhuhuna dhuunta ka soo boodaan see u aragtaa ma wax runay ku tahay ma wax cilmiga saynisku maanta burburiyey oo allah in la beeniyo soo kulama aha aywa kaaga jawaaba dhegeyso gasba 1 minute si aaga jawaabi falyandur al-insanu mimma khuliq ibn aadan kama eego miya waxa laga abuuray khuliqa min ma'in dafiq waxa laga abuuray biyo booda saynisku maanta wuxuu tilmaamaa biyaha ragga in iyo biyaha dumarka inay qabaan waxa la dhaho mitochondria waxay ku tilmaamaan inay dhahaan produces energy necessary for the gushing of the sperms to reach the egg or vice versa waxay dhaheen this is a gushing water wa biyo booda marka khuliqa min ma'in dafiq ma ka abuur maamiya biyaha dumarka ku soo socda sug يخرج من بين الصلب والترائب سك من بين يخرج من بين الصلب والترائب او ايمانا يا مركا يخرج من بين الصلب والترائب سيس كمان وحو قبا بيها رقب بحيتانكودا ان السبب او يحي maxaa dhahaa sensation dareenka dareenkana maxaa keena spinal nerve na xagu ku yaala spinal column oo laf dhabarka ah marka soo bixitaanka biyaha ragga waxaa lagu tilmaamay inay ka dhashaan dareen kicinayo spinal nerve ku yaalo laf dhabarka yakhruju min bayni as-sulb ayaa meesha soo gelaysa wataraa'ib waxa weeye waxay dhaheen dumarku uma baahno dareen waxay u baahan yihiin uxkanta inay soo baxdo maxaa soo bixinaa waaye waxaa soo bixinaya the contraction of the ovariga oo istuujiyo soo sii daayo uxkanta maxaa keenaya tuujinta ovariga waxaa dhaheen waxaa keenaya nerve loo yaqaano intercostal nerve xaguu aga yaala dumarka kalxanta ayuu aga yaala ay dhahay science-ka oo dhanka feeraha kalxanta hadduu aga yaalo xididkaasi ayaa wuxuu keenayaa ugxanta in la tuujiyo laakiin aayadda neerfka ma hadlayso in la tuujiyo oo soo baxdo aayadda waxay ka hadlaysaa waxaa lagu dhahay maa in daafid biyo boodayaan lagu yidhi sheekh amrow biyaha ku tilmaama biyaha lagu yidhi biyo dhabarka ka soo baxaaya dhuunta ka soo baxayaan sheegaya marka dhegeyso marka biyaha ugxantu waxay ka samaysan yihiin cytoplasm dhibacda raggana waxay ka samaysantahay cytoplasm boqolkiiba 90 waa biyo 90% cytoplasm google gale 90% of the cytoplasm is made of water labadaba waa dareer biyo caadi laga hadlayo hada sheekhow meel kale aad hadda neerfiye ma ka tagtay biyo noqdeen miya suga ku sheegay
waxani waa dhareerkuna waxay dhaheen wuxuu ka samaysan yahay cytoplasm kana boqolkiiba 90 waa biyo sayniska inaad baratid intaad mudxil hore noqonin ayaa ka horeysa walaal fiiri waxaan ka hadlaynaa waa biyaha abuurka laga abuur baan laga hadlayaa waxaan shahwada ninkana dhabarka ka imaataa fiiri walaal shahwada ninkana dhabarka ka imaataa biyo caadi lagama hadlayo biyaha ragga biyaha lagama hadlayo sperma laga hadlayo human cells al dhaha fiiri biyaha ragga هاي أنا وايد دمعتي أنا وجدت أنا تمام شيخ أنور حتى عشان تاي دقيقة قدام بيسي وحي عاديه لا يتقابل أكو بالله ها مركا وحده لا تموي بيها هذا يخرج من بين الصلب وترائب أكو شرحيا صف يعني دقيسو هرتا بيها رجع يو بيها دمرك وحلوك كلا سميها لبا ورشدود كلا دبل بيها رجع وحلوك سميها حنيها وحنلو يقانا the reproductive organ of the male أما the male gametes كالو يقانا دمر كانوا حلقوها جاجيا أوفريجا لبضو وحي قبان حدد ولده gonads دمر كو حدد كاسي وحلو يقانا the ovarian artery سودو أسعد وحو قلال لبا حدد ووين أيو كسو قاتا وحي لغا سمين لها أقحانتاسي لبضا حدد وحاوي abdominal aorta يو vena cava رقونا حدد كاسي هذا يو abdominal aorta يو vena cava وحلو يقانا waxaa loo yaqaanaa the spermatic vessel ayaa keena waxyaalihii la hagaajin lahaa biyaha ragga siday labadan xidid u socdaan waxay galaan laba xidid oo waaweyn loo yaqaano abdominal aorta iyo vena cava labadaas ayaa soo sii daaya raw materialkii biyaha ragga laga samayn lahaa iyo dhibacda dumarka laga samayn lahaa labada xidid oo waaweynna waxay ku yaalaan waxay dhahaan sayniska it's in between the ribs and the backbone wuxuu u dhaxeeyaa laf dhabarka iyo kalxanta waa labada xidid aorta iyo vena cava waa laba xidid waaweyn midna buluug ah midna guduud ah labadaas boo alle subxaanahu wa tacaala in ay sabab u yihiin bixitaanka biyahana wuu sheegay falyandur الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب وترائب horta xagga waa asalkii bixitaan baa u imaatay biyaha soo baxayo ama boodayo biyahani boodayo waa biyo boodo quraanka nagu tilmaamay oo maxaa ka bootiya oo maxaa ka yeelaa inay noqdaan biyo booda ama biyo duula waxa ka yeelay mitochondria ku rakiban haddaad ugxanta dumarka aad fiirisid waxa ku jira mitochondria oo dhibacda raggana waxa ku jira mitochondria produces energy necessary for the gushing of the water to reach the egg gushing of the gametes to reach the egg gushing of the sperms to reach the egg. These are gushing water wabiya booda oo haddana say u soo baxaan raggu biyihiisa bixitaankeeda waxaa lagu saleeyay lagu xiray xidid loo yaqaano spinal nerve oo keena sensation dareen ragga dareenkiisa waxaa kiciyaa xidid loo yaqaano spinal nerve kuna yaalo spinal column laf dhabarka marka raggu biyihiisa soo bixitaankooda dareenku wuxuu ka imaadaa nerve كسليسن لف دبركا يخرج من بين الصلب وترائب كوي ماتي دمركو وما باهنو سنسيشن دارين وما باهنو وكحنتودا إن لسوسي دايو دارين وما باهنو قبضو هدي دارين قبتو هدي دارين قبين وكحنتو ويصبح دا هدي لبعدي مني وينا حيث بو نقدا محاكينا إنا وكحنتو ويصبح دو وحاكينا contraction of the ovary go تو جسمو صوتو فوق وكحنتي تو جنتاني ovary waxaa dhaliya xidid loo yaqaano intercostal nerve ayaa ka yeela ugxanta in ay soo baxdo intercostal nerve-na wuxuu ku yaalaa laf dhabarka dumarka ayadu marka waa sax saynis ahaan haddii loo fiiriyo haddii hadal ilaah ahaan la dhahana anaga 100% waan aaminsannahay falyandur الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب saynis ahaanna waa okay waxa saynis ahayna adiga aad ku daldaalaysidna waxaan u maleeyaa dalmarow haddaa mulxad dhab tahay horta saynis baa baran lahayd adoo saynis garanaynin oo haddana jaamacad tegin ama adduun baranin saynisna baranin ayaa ku wareertay mulxidnimo oo waxba ka garanaynin marka su'aal baa kuu dhiibayaa dhegeyso saynisku wuxuu cabiraa waxani maxay u dhaceen laakiin yaa ka yeelay inay dhaco ma sameeyaan ma sheegi karaan marka sayniska iyo wax walbo wuxuu daliil u yahay jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala marka saynisna garan maysid adoo saynis baranin ayaa hadana mulxidnimo ku dheeraatay
marka waxaan u maleeyaa dalmarow intaad mulxid noqon lahayd sayniska horta baran lahayd saynis taqaanid maysid aqligii ma kaashanaysid damiirkii ma kaashanaysid haddana mulxidnimaa ku rooreysaa mulxidnimo dadkii kaaga horeeyaa marra ka soo tagay oo gaaladii waaweyn ahayd dadka sayniska ahna oo saynis yahanadana way xoogooda muslim waxay ahaa dad diin hayso marka nin yahow waxaan waxba kuma taraysee allihii ku abuurtay oo alla subxaanahu wa tacaala ahaa ku soo laabo marka saas lee ku dhihi lahaa nin yahow nin weyn baa tahay waxaan aad ku daldaalaysa iska dhaaf ani waana bay iga taada walaalnimo ku waaninaya dalmarow way kaa dhamaatay marka dalmara iskale dalmarow hadal sheekha wixii aadina ka dhihi lahayd iyo doodaada waxaa kusoo gabagabayn lahayd 5 daqiiqo ugu dambeysay qaado aad iyo aad waa maasanta horta waa ugu mahadcelinaa asxaabtana dhegaysanaysay waqtiga baandasiinaysay aniga waxaan leeyahay asxaabta fadlan waa maqlayseen dooda labada dhinacba adigoonan caadifad iyo difaac iyo qabiil iyo qabyaalad ku qaadin si degan oo miir leh labada doodoodba u cabir waxaan rajaynayaa 20kii doodood aan kuu soo bandhigay in aad si fiican u baari doonto u dabageli doonto maxaa yeelay anigaba kula hadlayaba saan oo kale dad u doodayay ayaan isaamaysay oo aan markii aan baaritaan badan sameeyey arkay in wixii aan ku jira ee ahayd wax khaldan adoonsi iyo mugdi iyo dhaqan carbeed inuu ahaa yaan dareemay oo aan arkay marka waxaan rajaynayaa adiga oona aflagaadada iyo cayda iyo samaynin si tartiiba inaad u baarto 20kii qodob ee aan kusoo bandhigayay mar kastana su-aal isweydii walaalkayo waxaa tiraahdaa ilaaha weyn ee raxmaanka ah ee raxiimka ah ee dunidan abuurtay ma ka suurtowdaa inuu dhaqan carbeed yeesho dhaqanka carabta inuu ahaado mid xanaaq badan mid qoslaaya mid maseer badan mid carshi wax kale ma ahaya waa sariir jimbaaruu leeyahay kursiyuu leeyahay dumarkuu necab yahay mujeda suurtagal miyaa ilaah noocaas inuu jiri karaayo waa maya ha ka yaabin waa dhaqankii carabta yay shaati u hubiyeen oo keliya mujeda ilaah hadduu ahaan lahaa internationalah haddaad fiiriso qur-aankiisa wuxuu nooga sheekayn lahaa si international uu nooga warrami lahaa laakiin bal qur-aanka iyo axaadiista eeg maanta dhan carabta lagaaga sheekaynaa dhaqankoodiyaa maanta dhan lagaaga sheekaynaa ayagiibaa maanta dhan abuuqacqac iyo umuluxluxa unbaa lagaaga sheekaynaya marka taasi ma noqon karto ilaah jira ma ah marka ka fakir baaritaan samee waxaa kaloo eegtaa su-aalihii walaalkii anwar uu ku adkayd inuu ka jawaabo qur-aanka ceebta ugu weyn ee alla haysata waxaa waaye hadallada uu sheegaya ayaa iska hor imaanaya isduqaynaya isburburinaya damiirka hadda walaalkii anwar inka badan 24 aayadood oo qur-aanka ku jirta oo xataa aayado la faraayo muslimiinta leeyahay walmuxsinaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum la leeyahay yaa ayuha nabi innaa axlalnaa baa la leeyahay waa kuu xalaaleynay wixii o dhan oo inkiray maanta marka waan ku faraxsanahay doodan inay saamaysay oo uu inkiray aayadihii mataqaanaa adoonsiga aayadihii kufsiga aayadihii guurka qur-aanka 3 meeloodoo 2 meel inuu inkiro oo tuuray waan ku faraxsanahay waa waxyaabaha doodaha saameeya waaye hadda walaalkay gadaal wuu ka cadhooday wuu xanaaqay wuu og yahay jabka maanta uu geysto og yahay saameynta dad badan oo walaalo ah maanta una dhegaysanaya saameysuu og yahay wuu ka qoomameynayaa marka taasaa keenaysa hadalkiisa inaad ka dareentaan carab badan xanaaq badan aflagaad badan waana wax dabiici weeye qofka aanan nolol kale haysanin oo waxa kaliya haysata ay tahay baashaas oo bariiskiisa ay tahay haddii uu dareemo bariiskiisii xoogaa laga qashqashaadayo fareed uu dareemayo qofkii uu dagaalamaya carrada uu qasanaya seef uu la soo baxaya marka waa wax iska dabiici marka waxaasaa u bixina oo keliya doodaha lasoo bandhigayay keliya fiirsada doodii kale uu ka cararayay qur-aanka waxaa lagu leeyahay ilaahay baa intuu soo hadla uu ku leeyahay nin la yiraahdo nuux oo 950 sano hadlaayay ka warrama qof hadlaayay 950 sano maxay kula tahay saaxiib qofkaasi meeqa sano uu jiraa 2,300 sano uu jiraa ninkaasi marka qof bini aadana 2,300 sano ma jiri karaa qof bini aadana xayawaanada adduunka jooga oday waliba intuu xayawaanada adduunka soo qaaday meel ma iskugu keeni karaa midda kale dad bini aadana un baa diiday caradan maxay tahay ilaahay dhibaatada allah haysata maxay tahay allah dhibaatadan haysata maxay tahay dad bini aadana un baa diiday wuuba xanaaqayba wuu cadhoodayba war ilaahayow bakaylahan aad dilayso shimbirahan aad laynayso xayawaanada masaakiin maxay kaa galabsadeen ilaahayow dambi kaama gelin qof bini aadana dambi kaa galay qofkaa maa qabanti haddaad qabanaysid waay xayawaanad u xasuuqaysaa u baabi'inaysaa
marka waxaan dhihi lahaa walaalaha dooda aan soo bandhiga u fiirsada ilaah waqti ah ilaah mataqaanaa markuu adduunyada ka hadlaayo aan aqoon badan u lahayn ilaah aan naxariis badan lahayn damiir lahayn dadnimo lahayn gabar yaroo maskiino ooyes iska daawanaya ilaah ma noqon karaayo marka su'aalahan bal isweydii ilaaha magaciisa iska hor imaanayaan ee illogicalka ah ilaah aan xisaabta aqoonin walaalkii kama jawaabin taa moogta ilaah aan xisaabta aqoonin oo ku dar iyo ka jar khaldaaya ilaah aan damiir iyo morality lahayn oo ilmo ila dilo dad ila nabigii dhammaa baa gabar yar guursaday nabigii dhammaa la leeyahay lagu dayado yaa dad xasuuqay wuxuu ku leeyahay aniga umirtu an uqaatil naas irsaaqadeeda dhanba seefta la geliyo ku leeyahay aniga wax dila moogiyo wax boobaba maba joogaayo waxaa kaloo eegtaa xuquuqa insaanka fiirisay wax xumeysa sayniska eeg wixii hadda aan ka hadlaynay fiirisay u burburinayso diinta u burburin marka gunaanadkayga waxaa waaye saaxiib yaal hala fakero sayniskaani barakeeyo guuleysta waxaan rajaynayaa inay caawa noqoto habeen aad meel ku qorataan aad tirahdaan habeenka caawa 5 bisha June waa habeenkii aan adoonsiga iyo mugdiga carabta ka xiroobay sayniskaani barakeeyo walaalayaal waa mahadsantihiin sheekh Anwar iyo Dalmar markaan waxaan sameynaynaa asxaabta soo qabanayaa qof kasto qofku su'aal u qabo buu weydiinayaa kadibna wuu degayaa qofku markuu su'aal weydiiyo wuu degayaa qof kastana wuxuu ugu jawaabaa su'aashii la weydiiyay 2 daqiiqo kaliya اوكي أنور سؤال أقوي أنور سؤال شويدينا وحيت هاي إن وايو الله أوكل إحد دمرك يرجع and محل هاي واي دمرك مر والبلاد حنارتي كوبدينهين